Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso kusoo dhawaad Taleex Media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro si aad ula socoto barnaamijyadan halkan ka soo dayno. Haddii aad horey inoola joogtayna fiidiyowgan sii share garay oo la wadaag asxaabtaada. kusoo dhawaaw sheekadii waa sugay iyo warsamay socdaalkii soddonka maalmood qaybteedii 20aad. qaybta 19aad waxay inoo joogtay waa sugay wuxuu halkaas ku xasuustay maansadii gambaraalaha ahayd oo ay tirisay Maynuun Biyoy oo ahayd halkaas waxay nooga bilaabmay qaybtii 20aad. haddaad reer masaa'ib maslaxay tiraa midka mowdka fuulaan maaro loo helayn waa sugay iyo warsame isma helin galabtaas. mid walibana wuxuu fadhiistay beer gaar ah wuxuuna ka tegey maqribkii asagoo leh maxaa kii kala qabsaday. mid walba markuu u warramay reerkii ayaa loo sheegay inay magaaladu leedahay beero nasasho oo tiro badan, sidaas ayayna ku wada ogaadeen sababta ay isu heli waayeen. subaxdii dambe ayuu waa sugay isku dayay inuu doono saaxiibkiis warsame. waa sugay wuxuu guriga oo warsame joogo tagay maalintii dirir quraanka la saarayay, dibna uguma laaban. maalintii oo dhan wuxuu wareegayay xaafadaha degmada Holwadaag. nasiib darro ma uusan helin aqalkii dirir oo warsame joogay. aqalladii isku wada ekaa iyo jidadkii badnaa ayuu asugu ku wareeray. odagii markuu quustay degmadiina ka soo baxay asagoo tallaabada jiidaya daal daraadiis ayuu xasuustay in geed weyn ku dhex yiilay aqalka dirir. meeshaas ayuu dib ugu laabtay. mar labaad ayuu degmadii dhex galay. waa sugay wuxuu istaagay bartamaha degmada markaasoo isha la raacay aqalladii hareerihiisa ku yaala oo dhan. sidaas waxaa uga caddaatay yaabna u sii kordhisay in aqallada intooda badan geeda ku dhex yaalaan. meeshaas ayuu waa suge dib ugu soo cagajiiday isagoo ka quustay aqalkuu raadinayay. niyaddana iska leh muraadkiisa gafa minankiisa ma gafo. waa suge asagoo guriga ummadda soo agmaraya niyaddana ka tashanaya oo isweydiinaya sida ugu warheli lahaa saaxiibkiis warsame ayuu jidka kula kulmay nin baabuur uu kici waayey. waa suge wuxuu ka mid noqday dadkii laga codsaday inay baabuurka riixaan, mana diidin. maxaa yeelay wuxuu xasuusanay mahmahadii ahayd intii nin dhibtaa laba ma dhibto. waa suge waa dadka samafalka jecel, laakiin maalintaas waxaa ka soo gaartay dhibaato weyn. markuu baabuurka riixdiisii isu diyaarinayay ayuu ushii iyo ubadii baabuurka korka ka saaray. haddaba maxaa dhacay? shufeerkii ayaa markuu baabuurkii u kacay iskaga tegay isagoo aan baabuurka ku kalsoonayn. hadduu joogsan lahaa oo dadkii u mahadnaqi lahaa. waa sugi markuu hubsaday inuusan joogsanayn baabuurka ayuu ka daba orday isagoo qaylinaya. dadkii jidka marayay ayaa is yiri ciyaal suuq ayaa duqa lacag ka dhacay. markaasaa qof weliba halkiisii ka soo orday. intii maqashay ayaa baabuurkii joojiyey. waa sugi wuxuu yimid isagoo aan hadli karin oo orodkii ku xiiqay. dadka oo dhammi waxay dhowrayaan duqa hadalkiisa, qaarna waxayba lahaayeen noo waran maxaa ku qabsaday. markuu xoogay nastay ayuu duqii hadle oo yiri usha iyo ubada ii soo deji. markii sababtii la ogaaday ayuu qof weliba qosol la raftay. markaasuu waa sugana qoslay. markii la wada qoslay markii la kala tegay ayuu waa suga mahmahay oo yiri balaayo waa tii kaa qoslisa. waa sugi wuxuu aqalkii wiilkiisii tegay goor duhur ah isagoo aad u daalan. reerkiina ugu sheekeeyey dhibaatooyinkii oo maalintaas la soo kulmay. waa sugi iyo warsame waxay ismoogaayeen muddo 2 toddobaad ah iyadoo mid waliba raadinaya midka kale. maalintii dambe ayay goor duhur ah isku arkeen masaajidka Marwaas oo ku yaala bartamaha Muqdisho. boqolaal qof ayaa salaadii duhur sugayay, laakiin inta salaadii loo joogsan welina dadkii soo wada socdaan ayuu warsame meel dheer ka arkay waa sugi oo gees kale ka soo galaya masaajidka. markaasuu warsame iska dhawaaqa oo yiri waa sugow. odaygii kalena markii uu maqlay oo arkay saaxiibkiis ayuu halkiisii ka soo orday oo dadkii salaada sugayay ka soo wada dulbooday, qaarna dardaray. nasiib darro odayaashii oo aan isa soo gaarin ayaa salaadii la aqimay. markaasaa mid waliba halkiisii safka ka galay. markii salaadii laga baxay ayay odayaashii isku yimaadeen. waxay is afdhaafsadeen salaan farxad leh iyo waraysi gaaban. intaas kadib waa sugi ayaa warsame ku marti qaaday inuu maalintaas kala soo qadeeyo aqalkii Muuse soona barto gabadha oo wiilkiisa qabo. si farxad leh ayuu warsame u aqbalay martiqaadkaas. horay ayuuna ugu warqabay inuu waa suga qabo naag caddaan ah oo magaceeda la yiraahdo Maariya. muddo yar kadib odayaashii waxay yimaadeen aqalkii Muuse. nasiib darro waxay maalintaas aqalka ku soo beegmeen Maariya oo jiran.
markii la qadeeyey xoogaana la sheekaystay ayaa salaadii casir la addimay. odayaashii halkoodii ayay ku tukadeen. markii ay salaadii ka baxeen oo ay ducaysteen ayuu warsamo u yeera muuse oo ku yidhi, koob yar biyo ku keen, aan gabadha jiran tahliil u tufne. waa sugo oo ogaay inay reer muuse tahliisha jeclayn kana hortegi la samafalka oo saaxiibkiis ku kacayo ayaa intaas niyad iska leh, ilaahayow nimaan wax ogeyn ha cadaabin, saa wax mooge. muuse wax kastaba ha qabee maalintaas uu ka xishooda odayaasha, markaasoo koob yar biyo ku keenay. markii odayaashii tahliisha tufeen ayay magaalada isu raaceen, laakiin intaysan aqalkii ka bixin ayuu warsamo u mahadnaqay reer muuse kadibna macsalaameeyey. waxaa dardaarankiisii ka mid ahaa markuu muuse la ballamayey, muuse markay gabadhu tahliisha cabayso waa inay 3 jeer ka bataa, bisinkan ku bilowdaa, kadibna ay madaxa iyo beerka gacanta la marsataa. galabtaas waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay waasuga iyo warsamo keligood magaalada u daawasho tagaan. waxay mareen jidad waaweyn iyo suuqyada magaalada. waxay maalintaas wadajir ula kulmeen waxyaalo badan oo ay reer magaalka ku dhaliileen. waxay arkeen ciyaal yaryar oo la da' kuwii miyiga ku ilaalinayay weylaha iyo maqasha oo markii qof baabuur meel ligto u soo kala ordayo, marmarna ku dagaalamaya oo inta qarshe isku jabsadaan la kala ridayo. odayaashu ma garan sababta ugu wacan, cid u sheegtana ma helin, laakiin waxay u qaateen ilmo aan waalid iyo walaal midna lahayn. waxay arkeen rag iyo dumar badan, xog iyo caafimaadna ka muuqato oo haddana tuugsanayo. marmar waxay la kulmayeen masaakiin run ah oo cilin iyo curyaan intaba leh. waxay galabtaas arkeen wiil 20 jir ah oo laga dabayaacayo, qof walibana leeyahay tuuga qabta. markay odayaashu dadkii wareysteenna waxaa loo sheegay inuu wiilku islaan waayeel ah oo dukaan wax ka iibsanaysay kala orday kiish gacmeedkii lacagta. waxay arkeen dad waaweyn oo da' walba leh oo jidkii la wada marayay laysna wada arkayay iyagoo taagan derbiyada ku kaadshaya. waxay la yaabanaayeen rag ay subaxdii hore arkeen, mid walibana goonidiisa ayuu u arkay ee islama socon gelinkii hore ayagoo jar iyo turub ku cayaaraya agagaarka kawaanka xamarweyne oo weliba hal meel yuurara. waxaa kaloo ay indhahooda ku arkeen odayaal da'dooda ah oo inta qamri ka dhargay asagoo sakhraasan dariiqa dhacdhacaya, ciyaal tiro badanna daba yaacayaan. goor maqribkii dabadeeda ah ayay labadii duq kala tageen ayagoo isku sheegaya in mid waliba danihiisa ugu dhammaaday magaalada, markaana oo bixid diyaar u yahay. midkoodna ma hubin maalinta oo ka tegi doona xamar. aad ayay u wada jeclaayeen inay isku arkaan baabuurka ay raacayaan. waxaa niyadooda ka go'i waayey safarkoodii hore oo ay isku barteen. warsame ayaana amuurtaas oo hadal qaada oo yidhi, mar haddaan reerihii ku wada noqonayno maxaa ka wanaagsanaa lahaa annagoo mar kale isla jid marna waa sugow. aad ayay u wanaagsanaa lahayd, alla agtiisana kuma adka. waxaanse u malaynayaa inaan ishaleeli weyno. warsamuhu nabadgelyo ayuu yidhi waa suge. halkaas ayaa labadii oday isku macsalaameeyeen ayagoo si darandoori ah isugu gudbinaya erayo kal furan ka soo baxayo. wuxuuna mid walba goobtaas ka dhaqaaqay asagoo gadaal sii dayayo oo niyadda iska leh, sida miyaad ku kala abaabi doontaan adiga iyo ninkii ragga ah oo aad isbarateen. intaas waxaa inoogu dhammaaday qaybtii 20aad ee sheekadii waa sugay warsame socdaalkii 30 maalmood.